xanuunada loo yaqaano khaasatan sokorta maamo muddo la ildarneyd isla markaasna ahayd dhakhtarad iyo umulada ka shaqeysay isbitaalka banaadir waagii nabadii dowladda jirtay waa aragnimo xagga caafimaadka leh oo qabta xanuunkani sokorta qabtay haddana ka caafimaday ilaahay ka caafiyey maamadaas ayaan wareysanayna bal daweynka isticmaashay si xaalkeeda marka hore ay sida dambe hadda soo dhawo maamulin ما شاء الله الحمد لله إلهي مهديس وان في عنا من وان عاصمة قوام علينا نحن سنة وجرتا ما شاء الله حنون كاسو إلهي سبحانه وتعالى لبي 8 سنة وهايي حدنا إلهي قاضي وستح عرور وميدة كل لي كاس هاي حنون كسكرت معانك كو لبا حميتي دا حي جيران ولا صار رباي ستح بابصير افر قاس درنا سكرت يغسي حنون بدن سيدو كلاتو maxaa tirada ii sheeg neerbo xagga lugaha iga hayay dhammaantood dawo sokor ayaa la qaatay wayna iga caafimaday dawooyinka aan qaatana waxaa ka mid ah dawooyinkan hadday tahay qaybka neerbo ama madax xanuunka waxaa loo qaataa calcium 4 kan ayaa loo qaataa hadday tahay calcium dabiici oo asal la qasaayo calcium 2 ayaa la yidhahdaa noocan ayaa la isticmaalaa sidoo kaleeto caleen lipid power management ayaa la yidhahdaa 6 geed ayay ka kooban tahay caleentaanu taa ayaanu isticmaalay maasha allah alxamdulilah kan waa jatasiin waa sumaha jirka ayaa lagu dhaqaa kow sumaha jirka ayay dhaqaysaa qofka jirkeeda waxa ku jira waxay soo qaban kartaa si awood ayay u adeegsan kartaa hadday taa sokor sidoo kale waxay keeni kartaa inay yacni maaragtay laga helo sokorta dhiigga raacda ay si toos ula falgeliso dhammaan aniga sokortayda oo hadda sokorta dhiigga raacda kaadida mid laga waayaday jatasiin ayaa la yidhahdaa kordhismis ayaa la yidhahdaa xagga lafa xanuunka keliyaha baaba ka dhigta sokorta ayaa loo isticmaalaa oo loo diidaa qofta inay keliyaha xaggooda dhibaato ka geysato dhammaan walaal markaas aan kula wadaago xanuunkaas aniga markii la ii qoray bishii koobaad waan dhameeyay bishii labaadna waan dhameeyay bishii saddexaadna waan dhameeyay dhaladka bishii afaraadna xanuunkan waa layga waayay jirkayga macaanka loo yaqaan sidoo kaleeto xanuumadii kale ayaa layga waayay waayo lama dhihi karo waa gaas kan waa neerbe kan waa bilow laakiin dawada sokorta ayaa lay siinayay oo ka koobneed kordhismis iyo jatasiin lipid sidoo kale waxaan ku sheegay wali ku sharaxay suburliina ayadana waa dawada ugu horeysa gacanta ugu horeyda lagu siinayo ayaday jatasiinto sidoo kale calcium tuubu waa afka hore asigana maasha allah qofku waxa ka dhumayo horta marka horeba calcium ka dhumo koo markan ayba qofku sokortu soo waafaqayso ayaan haday sokorku aydan waxa sibtaa waa dhiikar waxa sibtaa waa cholesterol guri iyadu noqonayda way calcium kaada ayaa dhacay soo guuxa calcium kaada isticmaal wax badan oo badan sokortan aad iyo aad badan ma tahay hambalyan kullayahay aad u maasantahay ma sha Allah mama lul oo testimony u ah isla markaasna ilaahay kaga caafiyo xanuun aad u fara badan iriya la yiraahdo waxaan qabeelay xanuun dhiikar iyo gas wallahi saacadan saar jira habeen iyo galab iyo aroor dawada markaan qaatay wallahi inaan dib isu saarin bilaayatullah run baan idin sheegaya waa isbedelay miisaankaygii iyo jirkaygii waxay dadku way arki jireen markii hore hadeerna way arkaan inkastoo aan saa ku soo talagelin rahmatullahi wa barakatuh magacay waa nuur maxamed cali degan muqdisho degmada shangaani alxamdulillah aniga muddo dhowr iyo 10 sano waan xanuunsanaay walaal xanuunkayga la igu yiri qaliin ka soko ma noqon karo inaad suurtagal inaad caafimaado qaliinkina waan ka baqay markii dambe waxa la igu yiri Sacuudiga ayaa lagu qalaa halkaas ma waan tagay dhakhtarkii markii la ila kulmay wuxuu ugu dhahay ani qaliin waxa lagu sameyn karaa shayga markuu meel uu ku kooban yahay marka ciladani aniga wax aan bixi karo ma ahan wax meel ku kooban ma ahan waa mugdi caloosha dhan waa mugdi wax aan qaliin la dhigi karno male dawadan la siiyo ilaahay kala saaro uu yiri muqdisho aan ku soo noqday Soomaaliya markaan ku soo noqday dhaqaatiir badan oo Soomaaliya oo muqdisho isbitaalada ku yaal dhamaan inta badan waan la xiriiray waxay ugu dhaheen kelida waa la bixina mar labaad waa la igu celiyay waxa la yiri dhakhtarka badal oo isbitaalka loo magac lahaayay sheegay waan tagay waxa la igu yiri kelida dhibaatada haysata ma ahan kelida waa xameetida iyada ayaa yani infection qaaday
إن حميتها لبحيو لطورة هي كلها لبحها في ماضي ساعة الحمد لله قورا يا يتمد أنا وحافظ كسوان وكان دونا إن هندي هذا في سرعة صدق si aan halkaas isugu soo daweeyo marka gabadhu waxay ugu tiri adoon ugu qalin oo Hindiya tigin ayaa dalka ka helaysaa dawo ma ogtahay murtooy mayaan ku yiri waxay igu dhahday subaxdii ii kaalay ila kulansiisa computer la saaray wuxuu yiri dhakhtarka ma la kulanta dhakhtar hore haayaan ku yiri wuxuu igu dhahay muxuu kuu sheegay wallahi wixii la ii sheegay inta kuma soo koobi karin ku yiri laakiin hadda waxaan doonayaa inaan xal helo aan dawo helo dawadii aan qaatay markii la siiyay dhowr gasac dawo aan qaatay xaafadii aan ku noqday waxa la igu yiri intii dawo kugu baxday marka ku bogsoowaysa labadan dawo waxa ku bogsoonaysa maana waqtiga lagaaga qaadin ilaahay tala saaro waana ku dhoofinayna iyo dalka dawadiisa buu qaadaynaa ilaahay waa tala saarnaa dawadan inaan cunaan ku qaracsanaan ku yiri dawada waan cunay waan qaatay waan ku soo noqday dhakhtarkii anoo intii dhaamo waxaan ku yiri waa fiican hadda dhibaatada way iga yaraatay ciladii haysay maxay ahayd xageesa ka baxday anigu wallahi ciladii aadan u xanuunsanayay haddana xanuunka ilaahay waa iga qaaday alxamdulillah waxaan doonayaa cudurkii ahaa in yani la ii faafaayo cudurka ku haa ilaahay waa kaa bixiyey wax saa u guurana ma hayna maxaa dhakhtarka muxuu kugu dhahay kilida bidaxana waa lagaa bixinaa xameetadana waa la tuuraa saasaa la igu yiri marka waxaan dhahay dhibaato aad u daran way haysay dhowr iyo 10 sano waa la xanuunsanay dhinacan labada dhinac ka mid ah uma seexa jirin marka haddana ma dareemayo ciladii maxaa xagee aad ciladii wuxuu yiri dhakhtarka cudur hadduu ilaahay kaa qaado inaad raadayso ma fiicna dawo kale ku siinaa isticmaal dawadii kale aan qaatay maalintii ay ugu dambeysay 6 bilood ka bacdi waxaan qaadan jiray dawo dhaqitaan waxaan u xaadiray hadba markii isbitaalka soo diro هذا مرة واحدة حاضرة مرة دكتور مركو حلا يقول هاي 6 bilood ka bacdi day dhaafto adiga ka qodobtooy waan noqonay 6 bilood waqshada la soo diray ku dhamaatay dawadii ku soo noqonayay 6 bilood ka bacdi dawadaas aan qaadan jiray waxay ugu dhahan xalan kaas een kuumay ama waa dhaqid oo 6 bilood ka bacdi aad jeekin lagu sameeyna ama waa lagu qalaa oo kilida bidaxda iyo xamiitida laga saara marka alxamdulillah muddo sano ayaa laga joogaa taladaas waqtiga aan waayay dhowr iyo 10 sano waa la xanuunsan alxamdulillah haddii xariiqa noloshaada uu ka bilaabanayo farta fardhaxaadka waxaad tahay qof hogaamiye ah oo hogaamin kara dad isku xiran sidoo kale waxaad tahay qof tilmaami kara shaqadii hami leh waxaadna tahay qof aan fikradaha dadka kale ku tiirsanayn waxaad tahay qof caqli badan oo go'aan wanaagsan qaadan kara inta badan waxaad tahay qof taxadir badan waxaadna tahay qof degan oo aan xasaasi ahayn sidaas daraadeed waxaad u badan tahay inaad noqoto gooni u socod b haddii xariiqa noloshaada uu ka bilaabanayo inta u dhaxaysa farta murdisada iyo farta fardhaxaadka waxaad tahay qof inta badan ilaaliya dareenka dadka kale aadna u wanaajiya dadka arinta kala dhaxayso waxaad tahay qof digtoon waxaadna tahay qof lagu kalsoonaan karo sidoo kale waxaad tahay qof marka uu go'aan qaadanayo u qaata si caqliyeysan laakiin waxaad tahay qof la qiyaani